وهاجا قولي واحد نقرأ سعطان تلفزيون كا يونيفرسال qaybta ugu dambaysa ee barnaamijkeena Hereri iyo Mareykanka toddobaad kana waxaan idinku hayaa gabadh kamid ah jilayaasha Soomaalida ama majaajilistayaasha aad iyo aad ka loo jecel yahay intaasun kuma koobna ee waa gabadh fanaanada oo aad iyo aad u cod wanaagsan hal abuurkana aanu yaraysanin gabadhaasi waxa weeye Safiya Tusmo Safiya aad iyo aad baan ku salaamaya walaalo saddexda mas'ale aan sheegay keebad adu xoog saarleed keebaan ku horeeya ma dhinaca heesahaaga ma dhinaca majaajiladu aad iyo aad lagu jecel yahay bandhigyada sameeysan mise dhinaca halabuurka inaga reeb u dambeysay labada kala dooro qoys isku ma fiicin sameynta anigu waxa weeyaan hadda sanadahan saad aragtayba waxa soo baxaya wax yaro durbaan loo tumo oo iska sheeka ah markaas waxa leeyahay waa heestii hebel sameeyay tula istooraya iyo tula kufaya iyo tula boodaya iyo waxa doonaan noqotaba marka halabuurka u dambeysay labada kala doortaa Soomaa way xagga heesaha maxaa ugu dambeeyay heesaha waxa ugu dambeeyay waxoogaa hadda aan horta heesaha sideedaba waan yar dadka intaan ka qaadan yara dhigaa way rasaysan yihiin oo de ma garanayo xilli ay soo kala kacayaan laakiin hadda hees cusub oo ayaan dhigitaan soo saaray baa u dambeysay waa kaas heesta maxaa la yiraahdaa markaa dadkan kuugu jecelahay yaa salaam dad oo dhan baan kuugu jecelahay waa ka way midhaheeda kala maxay noqonayaan midhaheedu waxay leeyihiin sida damal hadweyn oo dayib oo isgaadho daala guudka kaga yaal daruuraha cirka sare ay dalaalnimeeyeen qorraxdu direyska iyo dabka sii dhigayso dayaxay u muuqdo sii wada dardaarmo jeegaan sindadaba midabadeeda doorka ah ku dabaaldegayso dalbanaysa roob oo saxan diratay doorka cajiibka isla doontay ee bihin sida loo dawariyaan annagu ugu daalo dadkan kugu jecela yaa salaam oo de waa midhihii aynu waayay arki jiray tane imika watan baashii la fududeeyay saad sheegtay xabadan xagee ka hesheen xabadan horta islaamba waxay tira odaybaa oli iigu jira marka odaybaa aniga oli iigu jira sideedaba anay igu soo dhacday iga timid adaa sameeyay miya oo marka maxaad u diidaysay in la yidhaa waa halabuur ama abwaanad maya dee abwaan waad garanaysaayo duluc kasta oo wax ka yimaadiinba waxba ka tirin karaa laakiin aniga xabadan waana saan hore kuugu sheego odaybaa oli iigu jira halkaa marba igu soo dhacdo halkii mar unbay xabadaasi timid marka dhinacan halabuurka ama curinta suugaanta iyo keebaa ku horeeyay inaad heesto waxa ii horeeyay inaan heeso anigu horta sideedaba miyi baan ku dhashay dadka miyiguna markay yaryar yihiin 6 years old iyo meelahaas 4 sano 2 sano jiraanba heesa dhaqameedkii baa ay iska bilaabaan waa wax de natural oo meesha ka socda ilmaha caruur heesaha ilmaha loogu heeso talabaad waxaan ahaa anigu rajay baan ku soo koro hooyadii anoo yar bay dhimatay inama caruur yar oo waxa jirtay anigu reerkan u weynaa marka 9 baan jiray 4 yar oo mid sanad jira noogu yaraa wiilka yar hooyo waxaan xasuustaa inay u heesi jirtay markay xambaartay mar walba uu hees jeclaa waxaan bilaabay markay hooyo dhimato adna yartay wax lagu leeyahay inaan ka xambaar hoogta hooyo doonta ilmaha aan si eragaas hoogta hooyo doonta waa anu 9 sano jira la igu bilaabay markaan xambaaro een u heeso uu iga seexan jiray oo aamusi jiray marka kalena uu hin badnaa waxaan ku bilaabay inaan isagoo heeso marka mar walba marka saas waxaan dhihi karaa heesahan ku horeeyay maxaad ka xasuustaa marka heesaha aad u qaadi jirtay tusaale ahaan heesahan u qaadi jiray heesii hooyo u qaadi jirtay sideedaba marka ilmaha loo heesayo markaas adiga ilmaha aad wada joogtiin waxa ku saabsan hadduu xanuunsanayo hadduu gaajoonayo haddii maad aragtay ay wax kala hayaan haddaad dad xaafadda joogo oo waxoogaa xorgo fiir jirta ay maaragtay ku yara dhaga hadlayso kolba minidkaa hooyadu ilmaha dhabta ku hayso wixii ku saabsan unbaa lagu heesaa mar baa jirta la leeyahay anaa garan waxaad la gaydhan gubay gaajaha ku haysa lulaa kugu goydamaysa ee ha soo gala geelu xerada waa markuu gaajoonayo mar baa waxaa jirta aad leedahay gardaranow gobimo oydo ma mar isku ooyo oo intaad u maydhay oo cunto siisay oo wax walba aad u dhamaysa haddana uu iska calaacalaya oo ilmihii ma garanaysid meesha laga hayo waxaad dareemaysaa inuu kibir la ooynayo markaas waxaad leedahay gardaranow gobimo oydo garteeday sheegataay mar waxaa jirta aad arkaysid dadkan dumarkan de isku dumaashiyaha iyo caruurahooda iyo ilmo yaro reer caruuro badan lahaabad cilmo ka daba dhalaysaa
markaasaa waxay leedahay xashiish bay korinayeen xariiri hortaa ma dhalanin yes caruurihii kaloo dhan baa gidaafada dambaska laga dhigaya mar waxaa jirta uu leeyahay sidan gaajadoo kale mar waxaa jirta ilmihii intuu kaa yar dhaqaaqo oo gurigan amba sodohda gala amba edida amba aayada ilmihii oynayaa kuusoo baxaya mana garanaysid wax weyn oo lagu dhiftayna ma arkaysid waxaad leedahay ayaa dilay oo dagaalay ayaa dakharada ku jiiday ninkii dilay dayni maayo dagaal baa naga dhexeeyo dab iyo qool baan u qaaday waxaad ku dhaga hadlaysaa waad og tahay waxaad tusaysaa in ilmaha wax lagu soo sameeyey dadkan meesha jooga wax ku soo sameeyeen marka waa marba wixii ku saabsan ilmaha mar baa jirta hooyadu ay dareemayso inay xanuunsanayso oo ilmihiina hayso is leedahay ma korin doontid kana waad ka hor dhimanaysaa waxay leedahay ala way iga baxsatay waxa ku jirtay ku diran doonaaba mooy macnaha inaan ku diran doono oo iwadi doonto alla og bilood baabuur saartay bilood badda ila dhex maaxday bilood san u leedahay haddana wax la ku diran doonaaba mooy macnaha inaan xataa ku dirso qabaan meelaha waxay ka soo qabaan ku odhan doonaba ma ogi waxay dareemaysaa inayna noloshiisa gaadhi doonin dee heesahaasi Safiyaay waa kuwii asiiliga ahaa iminka mobile baa loo dhiibaa Soomaali ilmuhu markuu ooyo iminka waxaad u dhiibaysaa telefoonka chargerka dhinac ka gelisay siduuna uga damin ayaad iskaga dhiibaysaayo kartuun yaro xalla wuxuu ku hadlaya aan garanayn ayaad u dhiibaysaa marka ilmihii wuxuu ku barbaarayaa wax isfeedhaya iyo wax jabinaya iyo wax daadanaya iyo maskaxdiisu waxay la soo koraysaa waxaa dee mobilka ku jira ilmihii marka la xambaaro hooyada isku dhajin jiray dooni jiray inay ilmaha markaad xambaarto uu isruuxaya lagu hofidinaya gacmo fidin wuxuu doonaya inaad u heesto markaad u heestana saa intuu kuu qabto ayuu dhageysanayaa dhabarka marka galgacal bay abuuri jirtay galgacal mid kale codka loogu luuqeynaya xataa laguma hadli jirina waa lagu luuqeyn jiray marka ilmuhu wuxuu doonayaa luuqdaas haddaad xataa maansa ahaan u tiriso marmar uu isku oynaya wax madana sheekaynayso laakiin markaad ku dhawaaqdeed ku luuqayso heesta uu dhageysanayaa within 10 minutes uu ku gamay jiray maxaa tiimka marka mobile-ka loo dhiibo waa in waliba charger-kana uu ku jiro si aan uga baqtiin oo ilmuhu wax badan halkaas ugu ciyaaro waa tahay xagga majaajilada heesaha waynu ku soo noqon doonaa inta badan adig iyo kooxda aad la matashaa waayaha iyo duruufaha yaalla qurbaha waliba wadamada reer galbeedka ayaa ka matashaa ma la odhan karayaa muuqaaladaasi waa kuwa muujinaya nolosha dhabta ee Soomaalida Mareykanka oo kale wallahi Soomaalidu waxay tiraahdaa Cabdisalaano canaanka yaab reer madoojo haddaanu nolosha dhabta ah ee ka jirta Minneapolis iyo Columbus oo kali haatay aan wax ka sameeyno waxaan u maleynayaa inaan qurbo loo soo dhoofi lahayn laakiin kuma dhacno inaanu isaagtali noloshan ku jirno aanu soo bandhigno hadda for example haddaanu wasaaradda caafimaadka oo kale dadkan wax qaata dawladda hoostaga maaragtay SSI-ga iyo social security haddaanu waxyaalaha ay sameeyaan aanu matali lahayn Soomaalida wax badan baa iska bedeli lahaa haddana kuma dhiiran karna inaan sameeyno dagaal bay nagu qaadayaan Soomaalida waxa lagu odhanayaa filimka doona sameyn laakiin isaagtali waxaan sameeyno wax baa ka sameeyay dad baad arkaysa hadda waxa jiray mid traaglaashan ayaan ka sameeynay dhowr qalcad waa raggan gawaarida waa weyn wada xamuulka wada waa nimanka ugu been badan hadda dumarka dhibay waa nimankaas ajiib way oo way dumarku is qaban laayeen maadaama ay safar badan yihiin bay iska yarahay way safar badan yihiin way telefoon badan yihiin way dumar badan yihiin waxa laga yaabaa inay 4 gabdhood oo is ogeyn ilmo ka dhalaan oo isla North America ku nool way intooda badan maalinta ay dhintaan bay carruur badan ka soo daba baxaan iyaga lamana doonayo oo wax oranayaan Wisconsin baan joogaa injinka duqeeyay baabuurkii baa laba u kala go'ay bridge waxa la yiraahdaa low bridge baan galay wax baa dhacay beentoodu waa waxa la believe garan karo signalka iga tagay oo waxaan tagay meel heblaayo telefoonkii baa iga shan kala jabay alaskan qabtay way dareemayaan dumarku marka waa wax dhaca mar walba dhaca oo shaakadu ka banjiro intaas oo saacadood ayaa waa gaariga tareenka la eego inta la sameynaya baa waqti qaadata marka waxay keeneen iyaguna inay 5 telefoon oo kala duwan ay qaataan oo ay kala qariyaan oo income la kala bedelo oo aan dumarkii ogaan karin marka filimkii ugu dambeeyeen sameynay waxaan ka sameynay mileage-ka inay ogaadaan dumarku bal inuu sheekadan uu meeshii tagay uu sheegay ilaa gobolku tagay uu ku sheegaya marka ninkan wuxuu leeyahay Seattle baan aadaya Seattle-na waa meesha noogu fogaashada badan Mareykanka markaan daantaana uga joogno waa inaad ogaato marka bal mileage-ka inuu gaarigana Seattle tagay in kale mileage-ka baan sawirnay waxaan sameynay in aad picture ka qaadid markuu soo noqdan aad eegtid inuu dhowrka kun ee meel uu sheegay ay tareenkii baa ku korodho taraag marka ninka xilliga Seattle baan tagay soo noqonaya gaariga mileage-ka waa halkii
Arizona aan tagay haddana uu soo noqonaya mileage-ki waa kii uun soo taasi waxay caddaynaysaa inuu magaalada dhinac ka joogo una bixinba waatay kuwa aan anu aadka uga sii helo waxaa ka mida mid aad hooyo matalaysay oo inantaada ama gabadhaada nin Oromi uu kaa soo doonanayay kaasna maxaa ku keenteen waxaan ku keenay wacyiga hadda taagan maalmahaas waa maalmihii la yidhi Oromadu waa diro waaba Soomaali oo waliba la soo qabiileeyo hoos la keenay gabdhaha Soomaali dumarka Soomaalida marka inaan laga soo doonto hadda waxaad arkaysaa nin cadaan ah oo hadda uun diinta soo galay oo maaragtay aan dee u soo galay xataa waxa laga yaabaa inuu gabaabsiyo dee u soo galay gabadha inuu ku helo waa gabadha la siinaya dadkan Afrikaanka ee maaragtay inoo dhowna waxaad aragtay foobikan ka qabnaayo hadda dee Ethiopia ninka soo jeeda hadduu inan ka soo doonto waxaad leedahay colaadii 77kii baa wali soo ku taagan marka hooyo Soomaali ah iyo Soomaalida dee qudhooda qaar kamida ha qabiilada qaar kood baa la leeyahay reer baa inaniga soo doontay marka waxaan tusaynay hooyada inanteeda siinaysa Jamaicanka iyo maxaa la yiraahdaa ninka Americanka amba Canadianka amba the United Kingdom meesha doonay ha u dhashay inuu at least kani kaaga dhow yahay adigu si la yaab laad u matalaysay laakiin ninka Oromada matalay ma Oromo isagu maya waa Soomaali wiilkaas waa Soomaali galbeed iyo dhinacaas maaragtay u yaqaanaas afromadana u yaqaanaa waxa yaab la wiilkaasi u heesaa weeyaan waa fanaan heesa khadar saddex laad baan salaamaya ma ahayn jila maalmahaas uu nagu soo biiray maalintii anagoo intaa wax soo jireynay markaan qalcada u dhiibnay waliba si yaro simple anagoo sidan kale u fadhina bay nagu soo dhacday sheekadan mid aan ka soo shaqeynay oo ka soo hadalay oo baragti soo sameynay ma ahayn wuxuu keenay inuu socodkii iyo actionkii iyo hadalkii iyo hataa qosolkii inuu keeno kinilka afraad sida laan barnaamijyada samaysaan ee majaajilada ama ka hadlaya nolosha Soomaalida Mareykanka sidaynu sheegnay keebad ugu jeceshahay waxaan ugu jecelahay kuwa dhaqanka laga hadlayo sida riwaayadii la siiran sameynay oo kale waxa ku jirtay anu single mother baan ku metelay riwaayadaas waxyaalaha ay ku jirto wacyigelinta laga faa'iidi doono wax amba dhaqan aad ka hadlaysid amba diinta aad ka hadlaysid hidaheeni waxaynu inagu lahayn aad ka hadlaysid baan ugu jecelahay Mareykan imsa sanadood baad joogtay imika 20 sanaan joogaa ma 20 ku dhan waatay dibir horaad Mareykan noqotay markaa waxaan soo galay 98kii ma soo galay ilaa 98kii la hadana halkaan joogaa waxaad degan tahay sidaan ka warhayo Ohio Ohio degan marka intaas oo dhan ma Columbus baad degan maya waxaan ku soo bilaabay New York baa la keenay New York baan deganaa muddo waxaan deganaa 3 sano iyo waxa intii ka dambeysana Columbus baan deganaa xaqii heesaha hadaynu ku yara noqono iyaga goormaad bilowday markaa heesaha markaan waxoogaa teenager-ka ahaa aroosyadan ka heesi jirnay qaaciga iyo qaraamiga aroosyada laga tumo ayaan aad u xiisayn jiray oo durbaanka yaree sacabka lagu daray baan tumi jiray hadda markaan soo qaxnay oo dadkii soo qaxay baan iska soo raacnay anagu ma soo qaxin oo daamahan ka nimi lagama soo qaxin laakiin Soomaalidii soo qaxday ee dhibaatadu heshay baan ugu soo lug darno waa naga halkan nimi dhulkana waxaad aragtay qofku hobbigii wuxuu u leeyahay amba uu u leeyahay uu sameyn karo time uma helo oo maaragtay dad badan oo talent leh oo wacyiga lagu jiro uu dib u dhigay baa ku jirtay heesaha 2000 iyo waxaan bilaabay inaan hees duubo 12 xagga suugaanta kale geerarada kale ayaad aad iyo aad khatar ugu too waliba aad ku luuqaysaa geerarkeebad inoo soo qaban lahay gabay horta gabayada sida heesaha gabay baa dhaamsan geerar gabay sida heesaha loogu dhiibo fanaanka baa gabayada la igu dhiibaa marka gabayo waxa jira la ii dhiibay oo anigu ku luuqeeyo oo gabayada markaa adigu maba curiside waa lagu dhiibaa si aad ugu luuqayso soo kala la igu dhiibaa qaarna waxaan ka soo waade gabayadii hore oo inta badan dadkii abwaanadii hore gabayadoodii waan ku luuqeeyaa sida Cabdullaahi Suudaan Timacad oo kale maxaan ku dhahdaa gabayadooda waan ku luuqeeyaa gabayo la ii dhiibo sida heesaha la ii keeno oo aniga ii gaarana way jiraan oo abwaanadu ii dhiibaan marka de hore uma jiri jireen ama mar yalla bay dhacday intaan ka war hayo anigu in
gabay intuu qof sameeyo deedna fanaan loo dhiibo ama fanaanad oo marka ay ku luqeeyaan iminka taasi macaadi baa wallaahi horta waxaa caadi ka dhigay soomaalida waxaad arkaysaa heesahay xiiseeyaan gabayga iyo heestana gabaygaana ka weyn kana nuxur wanaagsan kana taariikh dheer hadda gabay uu tiriyey abwaan 100 sano ka hor oo maanta la isticmaalayo aad arkaysaa heesuhu laakiin bulshadana gabayadu way wada gaadhaan oo wadaad iyo caariyaad iyo Soomaali oo dhan baa wada dhageysata heesahana dad gaar ah baa dhageysta marka gabayada barigi hore waxaan ku luqeyn jiray gabayada abwaanada oo meelaha marka la isugu yimaado masraxada kaga luqeyn jiray markii dambe waxa isku bedeshay gabaya anu aan leeyahay oo la ii dhiibay inaan ku luqeeyo bal hadda gabayada waliba sida gaarka aad ugu luqeyso mid inooga soo qabo aan ku luqeeyo marka masaacadi baan ku soo مصايب تنسوما لوين مدحا لو ساري ميو مقالة بدبتان مرة لاغا وايي مدركي عركو اسحراي دولكون مدكا سوياعين معلوشان هادي ويديو مالكان دابر بيلاي ومدي وقرسيقو ديقود مدحسان ايسيني كما عاشا واتاد شرعيقا مورونكا كنتيني قبل وحو كهاليا صوماليدا اسليدا نمبرada isku sheegta ereyada waxa sameeyay abwaan luqmaan sidee nambarada isku sheegto markaa point 1 iyo point 4 iyo point 5 iyo waa 4.5 kan bariyahan dambeena soo galay ha qoorsigu ka hadlaya way marka ma dhibaan inaan maagno oo midabta koor saarno muslimiin ilaahay taqaan ma hadda loo geysto waa midii uu qoorsigu dhigood madaxsanaysayna ka macaasha wata sharciga maranka keenteen marka uu aad buu u dheer yahay wuxuu leeyahay mudaca iyo maxaarka iyo dadkii gudunta maareeyay ee kabaha maaska atole milicda noo diiday magligana afeeyay warmaha cadow ka maagayo adu waa gabay saas u dheer oo ka hadlaya qoorsiga laakiin si aad macaan ayaad ugu luuqeynaysay maluuqda wanaagsan ee la yaab kala marka lagu xishaadiga wallahi kullayto qofku de wuxuu hobby u leeyahay markaad aragto hada fanaan heesiye markaad aragto abwaanku de fanaankaas oo heesta la raadsada marka la arka gabadh gabayeysa de gabayaaguna wuxuu la soo raadsanayaa qofka ku luuqeyn gabayga waxaad moodaa inuu ka mid yahay noocyada suugaanta ee si dabar go'aya ama suuqa ka baxaya gabayga kaliya ma xitaa geeraaradii safiya adiga aragtidaada maxay la tagayaan bay kula tahay haday saaxadaba ka baxaan gabaygii geeraarku yaa maanta gabaygii de fara ku haya ama dhageysta gabaygii horta wallahi dad yar baa dhageysta inkasta oo Soomaalida markaan ay arkaan gabay anoo ku luqeynaya dadka gabayada i weydiiyay amba gabayada ii soo dira aad ay u tira badan yihiin hadda waxaan guriga ku hayay 13 gabay oo cusub oo abwaan walba igu soo luuqay gabayadu haday tagaan oo sida ku suuraan Soomaalinimadii waa suuraysa wakiilaha Allah u naxariiste Abu Abshir Bacadle taariikhda waxa lagu guntada gabaygu Soomaa taariikhda waxa lagu guntado gabaygu Soomaa gubaaba iyo nabadgelyaba gabaygu Soomaa waxa tartan waxaanay heesuhu la gelin gabaygu Soomaa waxaan gaada ka ciyaar lahayn gabaygu Soomaa waxaan turumba loo gaabinayn gabaygu Soomaa waxaan muusig loo gaawinayn gabaygu Soomaa gun iyo baarba suugaan gobeed gabaygu Soomaa wax sarbeebta gaar ugu hodmi ah gabaygu Soomaa marka gabaygu wuxuu ahaa waxyaalaha lagu garnaqso ee la isku daandaansado ee lagu dagaal tago ee taariikhda gala ee haddana taariikhda lagu gunto abwaanadii soo gabi jiro dhan waad arkaysaa ilaa hadda way taagan yihiin laakiin abwaanadii gabiyin dadkii aan gabiyin gabayadooda la guntin de sabir way dhinteen taariikh male laakiin abwaan waxaad arkaysaa 1800kii oo kale waxyaalihii hadda hal xidhaale waxa jiray laba abwaan oo 1800kii ba waxay ciyaarayeen shaxbi ciyaarayeen waxa la oran jiray Faarax Aytame iyo Weerar Bulxan waxay ka tageen hadalkii ay ka tageen baa soo gaarsiisay maanta inaynu inagu barnaamijkeena magacooda ku soo qaadno shaxbi ciyaarayaan oo markaa wuxuu yiri rida show waxarteedii reer dhancaana ku deeqday bal risaalo ku sheeg buudi marka su'aalahaas oo kale shaxda la isku hor yimaado ma soo qoran kartid ma oran kartid saacadisi ma oran kartid barri baan ka jawaab abwaan kale ma soo weydiin kartid
wuxuu yiri ridasho waxarteedii reer dhancaana ku sheeqday haddii aan run ka sheego aad se been ka rogaasho rabbi baan kugu raacshay xilli roob aad sugaysaad firi meel ku ridaa buu yiri raxmadii ku heshaa habeenay ku radaa biqil maxaan ku dhahdaa adi wuxuu soo dhameeyay xilli roob aad sugaysaad firi meel ku ridaayo raxmadii ku heshaayo biqilay soo rogatayo dheeliday ruxruxdaa sabuul gees ka ridaa mooyaha lagu riiqiyo dharigay ku ritaano waxay reerka dad joogay baa boosaas cuntay u noqotaa marka erayada wanaagsan ay ka tageen ayaa ina soo gaarsiisay maanta halkaas keentay gabaygu hadduu suuro dadkuna way suurayaan anu Soomaalida waxaan dhihi lahaa ha lagu tartamo gabayada Safiya Tusmo aad iyo aad baad walaalo mahadsantahay sharaf bay taynayno Minneapolis ku kulanno thank you walaalo aad baad u mahadsantahay waan ku mahad celinayaa dhamaantiin waan idin salaamayaa inamada TV-ga duubay